السلام عليكم أصحابي دمانتين وادي والسلام كل سؤال channelka fadlan marka la channelka subscribe karin ha iloobina subscribe please channelka maanta videoga wuxuu noqon doonaa insha Allah saadkii halkuu maraya maxaan isku ogeyn oo insha Allah bishii waa la soo gaaray oo May way dhamaatay Ramadaantii waa dhacday ciidii way dhacday ma sha Allah waxay qorsheynayeen inuu May 6teeda ay la kala imtixaankii SAT laakiin waa la kansalay maadaama oo maxaan dhahay la kansalay August oo lagu bedelay sida imtixaanka u dhacday horta ma hubna in August la kansali doono laakiin waqti xaadirkan August 29keeda ayaa qorsheysan in imtixaanka la galo sidoo kale waxaa qorsheysan in August September la galo October la galo November iyo December la galo so September 26keeda August 29keeda October 6keeda ayaan jeclahay somehow adiga falkan intan bilowda ka hartay 21ka 2021ka waana geli doonaa imtixaanka insha Allah sidoo kale waxay rajeynayaan in March iyo May laga daro sanadka cusub oo sidaa la isku raaciyay marka sanadkan ahaan 20 to 21 la isku raaciyay yani so hadda let's see writing writing iyo grammar ayaan arkina mar walba way ka duwan tahay kaynu aragno hadda qaybtan su'aashan arkay waa su'aal ku la xiriirta inta badan where iska yani oo hadda where khalad ayaan u gelin karaa booska I don't know yani let me try for the first time aan isku dayo su'aashan insha Allah waa 5 su'aalood inta ka hartay waxaan ma practice kareyn doonaa insha Allah karaankeena so yeah su'aasha waxay ina leedahay in historic 1963 book okay identify the problem that has no name the physiological scabble okay psychological scabble okay for a woman who wanted to pursue professions but due to the cultural reactions of the year were destined to be so hadda intaan aan arkayno just intaan laga saar directly the physiological okay blank for a woman who wanted to pursue professions but were destined to be homework okay so I don't know really so where can hore ma scaffold yani umaleyn maayo inay struggle la mid tahay yani I don't know both hore ma arag ma ba akhrin kariban so yes markay kugu adkaato kale maxaa sameyn because imtixaanka dhan it's all about something like this baby aan ku sheegay su'aasha haday kugu adkaato please waqti haseenin believe in me yani waxa ku jira dhammaan su'aalo fara badan oo ka shaqeyn karto dibcaagana kor u qaaday sidoo kale waxaad ogaataa su'aalka fadli badan yani dhanka isha points ka ma jirto dhammaan waa point hal ah waxna isku mid ah so hadii su'aashu ay kugu adkaato halka point ay kugu adkaato inaad 2 daqiiqo siiso oo laba su'aalood oo 2 daqiiqo aad kaga heli lahayd aad maxaan khasaariso ayaa la diidan yahay so su'aashan yani no change waan anigu ku daynay because meelay ereyga ma akhrin kariyo xataa hore uma arag just cancel ereygan it's going to stuff for women so I'm just gonna take struggle and let us see oh mashallah waa helna jawaabtaas right so yes so su'aasha labaad tagno located on the northern coast of South America okay surname touched rainforest on the continent the most untouched rainforest on the continent okay stories I don't think in stories yani because located on the north coast of South America the most untouched rainforest on the continent and halkaas hold this ama yani waxay haysaa waxa laga helaa waxa u dhowaad yani macna noocaas because yani the most untouched area located on the north coast of South America yani in that case shay waxaad raadisaa yani halkaas ama halka bes laga helo ama halkaas uu yani stories ma qaadan karo waayo u maleyn maayo in story la qaadan karo something like rainforest iyo waxaas oo iga cancel stashi soo maragta preservice let me just take preservice I don't think so but let me just take it yeah we're almost good just correct is so the word version indicates as synonym protectis okay it is rainforest well let's keep going here we have another question all Molly wanted to do was
Okay, blank is gonna a direct road to the beach, but her GPS kept losing its signal. Navigate. Okay. Okay, yes, navigate baan isticmaali because maadaama GPS la isticmaalayo yani convey no convey just here cancel convey meesheeda ka saar. I'm not gonna use this word for okay, just directly go to, you know, I'm not gonna change. And yeah, almost good. Let's do the fourth question. When she moved to a new town, okay, to harvest, okay, she wrote to Kalika a book club to dash friendships with people who shared her interest. When she moved to new town, a book club. So waxaan waa magac muhiimad aasaasin yani magaca doona soo saar gabarta yani she joined a book club to okay friendships with people who shares her interest. So cultivate no, harvest okay, but you can to tend, harvest, tend, no, I'm not gonna use the cancel D also. Yeah, I'm just gonna say no change to this question. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Turn the friggin' frogs gay. Serious crap. Gay. Frogs, friggin' frogs. It's not funny. I'm gonna say it real slow for you. Gay. Frogs. Won't you fight for your life? Gay. Frogs, friggin' frogs. I don't like the frogs. So cultivate. So let's شرح this division. Cultivate means develop. Okay, develop, which is what science do my making. Okay, we will share her interest. Alright, no problem. Let's go to the fifth question. يعني you don't care. Listen, waxaan dhan waxa loo sameeyaa xawiyaan inuu lagu eego يعني maskaxdaada. Adiga waxa tahay qof hal meel ku dhagan mise waxa tahay qof flexible يعني waxa la dhahaa sida waterka biyaha oo kale markii lagu shubo qarurada waxa weeyaan koobka aad ku shubto bay la kalar noqonay kalarka qaruradaas haduu casan yahay haduu cadaan yahay haduu madow yahay kalarka biyaha bay noqon marka waxa laga yaabaa inaadan qof adag noqonin waxa laga yaabaa inaad ahaato qof flexible meel walba farti gelin kara يعني wax walba la qabsan kara muddo si uu wadadiisa ugu sii socdo. So let's say before the black 14th century did not bathe by okay did not bathe by an act of instead they quickly cleaned themselves with water and cloth. So yes, but people did not bathe by submerging themselves in tub of water. Okay, drowning. Europe in the 14th century, medieval people did not. Oh, medieval people. So at that time, يعني that مرة تصالحان. People did not bathe by submerging themselves in a tube of water, which they considered an act of debauchery. Instead, they quickly cleaned themselves. Alright, so let's just take by themselves to water, which considered an act of debauchery. By shitting no engulfing drowning and مخورج you're gonna know it's just by into top of water. Okay, so I'm just gonna take no change because I don't know this question answer. Yes, this is the best choice. Submerging means going completely underwater.
Okay, yes, which is how people bathe themselves in top. Okay, right now waan garanaa waxay ka dhigan tahay. So right now as you can see waxay isugu jiraan waxaan fahamnay wax maxaan dhahay iyo waxaan kaskaraynay. dhammaantii waxaan idin rajaynayaa khayr asxaabta, is arag dambe insha Allah.